wuxuu xogta inqilaabka inta uusan dhicin la wadaagay safaaradda Soofiyeed ee Muqdisho. Waxay ku tilmaameen qof ay kaga kalsooni badnaayeen madaxweynaha. qoraallo kala duwan iyo kaadka sirdoonka midoogii Soofiyeed waxaa ku xusan ereyga Kiral oo ah magac afgarad oo ay sirdoonka Soofiyeed u bixiyeen mas'uul sare oo dowladda Soomaaliya xil weyn ka hayay aadna ugu dhawaa Allah u naxariisto madaxweyne Maxamed Siyaad Barre kana mid ah saraakiishii ku lugta lahaa inqilaabka Soomaaliya ka dhacay bishii Oktoobar ee 1969kii. sida ay sheegeen Kiral wuxuu xogta inqilaabka inta uusan dhicin la wadaagay safaaradda Soofiyeed ee Muqdisho. Waxay ku tilmaameen qof ay kaga kalsooni badnaayeen madaxweynaha. Wuxuu ahaa qofka ugu badan oo ay ka heleen xogta. Waxay kaloo ay sheegeen inuu ahaa ninka madaxweynaha ku qanciyay in la eriyo Peace Corps-kii Ameerikaanka iyo kalbar shaqaalaha. sidoo kale wuxuu rabay in saldhig ciidan laga siiyo Berbera midoogii Soofiyeed. wuxuu kaloo ka shaqeeyay in xog la xiriirta tiknoolajiyadda militariga Mareykanka oo Talyaanigu ka helay u gudbiyay Soofiyeedka. wuxuu kaloo sida ay sirdoonka Soofiyeedku sheegeen u gudbin jiray xogta kulamada uu qaybta ka yahay ee dowladda Soomaaliya iyo madaxda dowladaha kala dhex mara. waxaa ka mid ah kulan uu Kornel Qadaafi lala yeeshay. dhanka kale wuxuu kala shaqayn jiray la socodka dhaqdhaqaaqa diblomaasiyiinta Mareykanka isagoo gacan ka geystay in 5 ka mid ah dalka laga eriyo joojiyana maraakiib dagaal Mareykanka oo booqasho ku imaan lahaa Soomaaliya. waxay kaloo sheegeen in Kiral oo ideolojiyad ahaan u aaminsanaa nidaamka hanti-wadaagga haddana dhuuni kama marnayn. markii uu soo xaday sirta tiknoolajiyadda militariga Mareykanka waxaa lagu awaalmariyay $5,000 oo dollarka Mareykanka iyo in lala kulansiiyo madaxda KGB Andropov, ku-xigeenkiisa Simon Tezegon iyo hogaamiyihii Soofiyeed Brezhnev. inkastoo aysan Soofiyeedku dibadda soo dhigin magaca rasmiga ah ee shakhsiyadda Kiral, haddana markii aad isla akhriso qoraaladan, warbixinada iyo keedadka sirdoonka kala duwan, waxaa kuu soo baxaysa in uu ka mid ahaa 5 gole sare ee kacaanka. ma rabo in aan qof ku dambaabo, laakiin qof ayuu iila muuqday xilliga oo ay awoodda dowladnimadu xoogga lahayd dadnimaduna jirtay. basaasiinta Kiral oo kale waa ay isqarin jireen, laakiin maanta waxaa maqlaysaa madaxdii dalka oo leh hebel lagama tagi karo oo dowlad hebel ayaa xanaaqaysa iyo hebel dowlad hebel ayaa martigelisay oo biilkiisii iyo masruufka carruurtiisa bixisa ama dhul ay dowlad hebel siisay. sariiq qaran iyo mid ummadeed midna ma jiro. waxaa hadalkan aan ka soo daalacanay oo boggiisa Facebooka ku soo qoray guddoomiyaha xisbiga Wadajir, horna u soo noqday musharax madaxweyne, haddana waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. janaalka aad daawanaysaan waa raadka sirdoonka. horaadda nala joogto oo ku maasan tahay muuqaalkan noo shargarey si meel dheer oo u gaaro like-ta noo saar. saaxiibo badan nagu soo xir oo YouTube-keena subscribe ha noo saaraan. waxaa idinkaga tegaynaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.